حين marka hore waan salaamaya saxaafadda madaxa banaan leh mar labaadka waxaan doonayaa maanta inaan laba saddex qodob oo kooban halkan kaga hadallo Soomaalideena hore waxay ku mahmaahi jireen oo oran jireen mid waa yaab midna waa yaabka yaabkiisa mid waa yaab oo aboor baa duduma sabeeyay waa yaab aboorku itaalkiisa waa aragtay intuu leegi midna waa yaabka yaabkiisa oo candhuuftiisu ku sameeyay waxaan uga baranay xukuumadan marka buuq siyaasadeed yimaado inay kii ku ka daran keento dulqaadka laakiin mucaaradka lahaa oo mar walba dul qaadan jiray iyagoo ilaalinaya sumcadda iyo sharafta iyo karaamada qaranka leeyahay xukuumadeenu ama mas'uuliyiinta ka tirsan xukuumaddu dhawaanahanba waxaad moodaa inay jahwareer iyo dawaqaad iyo faham khaldan ay ka qaateen qaraarkii maxkamadda iyo xeerfoodhiin 2011 haddaan guda garoon mid u soo qaato 16 bisha lagu dhawaaqay oo maxkamadda Suuriga ku dhawaaqay 17 bishaba waxa hadlay garyaqaanka guud horta ummadda aanu bayaamiye garyaqaanka guud ummadda aanu tafsiire waa looyarka xukuumadda wuxuu ku hadlayna wuxuu ku metelaa xukuumadda 17 bishu hadlay waxa uu tafsiir khaldan ka bixiyay iyo faham khaldan qaraarka maxkamadda haddaba annaga ummadda u sheegaynay qaraarka maxkamaddu wuxuu si cad u sheegay in mudaxileedka xisbiyada qaranku uu 10 sano yahay xeerfoodhiin qodobkiisa afraad farqadiisa saddexaad xarafkiisa ra wuxuu si cad u sheegaya in mudaxileedka xisbiyadu 16 December uu ku eegi haddii 25 bisha ay doorasho ku beegato soo 16 December haday 25 noqoto iyaga xaq u leh inay galaan waa xuquuq asaasiya oo xeerka qaranka iyo maxkamadda Suuriga ay siiyeen cid ka qaadi kartaana ma jirto ama soo xaydxayta ama wax kala keena cid ka qaadi kartaa ma jirto xuquuqda haddaanu difaacan kari weyno xuquuqda xeerkuna siiyay haddaanu xisbiyada mucaaradkana haddaanu difaacan kari weyno xuquuqda shacbigana ma difaaci karno ta doorashadana ma difaacan karno si cad baan u sheegay ta doorashadana ma difaacan karno waxaan leenahay 8 bilood ka hor sidoo Abubakar sheegay gudoomiyuhu ayaa diyaar garowga doorashada la doonay March bisha saddexaad ee sanadka ama February dhamaadkeeda waa inaanu aragnaa in loo qalab qaatay diyaar garowgii doorashooyinka diiwaangelinta haddii taa la arki waayeen xisbiyada mucaaradka u taalla waxa yeelayaan arrintaa waqtigeeda hal la gaaro arrinta diiwaangelinta doorashooyinka xisbi ahaan diyaar baanu nahay horena waanu cadaynay waana taanu ku doodaynay xeerfoodhiin baanu ku doodaynay ayaa saxa waa kay maxkamadda sare qaraarisay bisha lixaad baa diiwaangelintiisu bil furmaya 26 bisha lixaad lagamana soo hormari karo xilligaas aanu sugaynaa hadii ilaahay diiwaangelinta
iyadoo waqtigeedaanu ka hadli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo diyaarna waanu u nahay laakiin March waxa la rabaa diyaargarowgii doorashooyinka madaxtooyada in diyaargarowgeeda aan la arko oo loo qalab qaato haddii taasi dhici weydo xisbiyada mucaaradka ay u taala hawshaas taa ku yar noqdo qariiqaanka guud waxaanu aaminsanahay inay shaqadiisu tahay inuu madaxweynaha ka eego xeerarka iyo shuruucda golaha wakiiladu soo gudbiyaan isla markaana marka madaxweynuhu saxeexo uu faafiyo waxaynu imarka ku aragnay dhaqan cusub madaxtooyadeena dhaqankaas oo ay ka mid tahay taariikhda markii koowaad in la yiraahdo golaha wakiiladu inay soo celiyaan madaxweyne yiraahdo madaxweyne golihii wasiirada waqtigiisu uu kugu dhacay ee dib soo magacaw inaynu aragna taariikhda markii koowaad xeer madaxweyne saxeexay oo ka hor imanaya dhaqanka iyo sharciga islaamka oo shacbigu diido la yiri no nalaguma dhaqayo mas'uuliyadda cidii lahayd isaga maanta anigu haddaan isaga ahaan la waan iscasilla anigu way de mas'uuliyaddeedii baan ka isaga intaas ay iga filan waxaan leeyahay mas'uuliyaddaada ka soo bax madaxtooyaduna waa madaxtooyadii qaranka waynu wada leenahay madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka xisbiyada mucaaradku ku matala sharafta qaranka oo dhan buu ku matala wixii khalad ma jeclin anagu waa in la saxaarinta dibna yaanay uga dhicin mas'uuliyaddeedana adiga leh sabab mucaarad tafsiir khaldan iyo faham khaldan ugu sameeyso qaraarka maxkamadda ma taalo oo taraa ra'yigan ka hadlaya xarinta hay'ad baali kaloon cadeynaya oo si cad u cadeynaya hawshan institution baali ama hay'ad baali hadday diiwaangelin ururtay iyo hadday doorasho tahay hay'adaha leh sabab anagu aan uga hadalaa ma taalo waxaan leeyahay xukuumadda dayaanka iyo dawaqa ka qaadeen qaraarka maxkamadda ayaa idinku wacan oo kulba gidaar ka soo go'aysaane waxaan leeyahay iimaansada oo xeerkii awadad ilaa imika waxa ku hadashaan qolooyinka xukuumadda u hadlaa ilaa imika waxay ku hadlaan waa xeerkii la dhigay hoosta ee maxkamadda hoosta dhigtay ayaa imika qaraarkoodu wali tunka ay ku sitaan waxaan leeyahay ilaahay qalbiga haydi ka soo reebo xeer 21 uu idinka dhintay ilaahay qalbiga haydi ka reebaan leeyahay xukuumadda waan idinka ducaynayaa gabagabadii waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka yiraahdo wasiirka warfaafinta in dhaweydba wuxuu muuqday xogayaha warfaafinta xisbiga kulmiye ayuu u muuqday waxaan leeyahay haddaad ka jeclaatay wasiirnimadii qaranka xogayaha warfaafinta ee kulmiye waanu kugu soo dhaweynaynaa laakiin waxa nasiib darro ah oo aan qarankan ka hari doonin in miidiyihii qaranka tiifigii qaranka warbaahintii qaranka abid intay Soomaaliland jirtay aad ka dhigtay hay'ad u adeegta xisbiga kulmiye aad iyo aad baan uga xumahay in shaqaalaha aan sharcigu u ogolayn inay ka hadlaan siyaasad ee xeerarka dalku u diiday inaad maalinba nin tiraahdo hebelow adiga ku qoran maanta waa nasiib darro weey kama xumin haddaad noqotay xogayaha warfaafinta kulmiye kama xumin laakiin hantida qaranka ka kaalay baan ku leeyahay oo kada hantida qaranka kada baan ku leeyahay oo sida xeerarka iyo shuruucda dalku u dhigay u daabaan ku leeyahay isagana intaasaan leeyahay ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan leeyahay xukuumaddu waxaad moodaa
hadallada imika media ay la soo istaagiyaan inay yihiin hadallo saboola oo aan karaamadii iyo sharaftii iyo sharcigii lagu wada hadli jiray ee axsaabtu ku wada hadli jirtay inay meel iska dhigeen annagu laakiin waxaanu doonaynaa inaanu qaranka u turanno oo aanaanu gambarka soo qaadateen aanaanu idin la soo qaadan meena gambarka sidataan waayo idinka waxa idinka dhimatay rajadii shacbigana ku hagiliidin baa idinka dhimatay annaga laakiin rajadii baa nagu jirta gambadhna soo qaadan mayno laakiin luuqadaan idinkula hadlaynaa waa luuqadda sharciga waxaanu leenahay waxaynu maraynaa 2022 baynu maraynaa damdam iyo cagajiid iyo buuq iyo jahwareer cidna waxba lagaga qaadi maayo haddaa cirkaa u boodaan oo aad soo noqotaan kulmiyuun baati wandhayna kuma dari kartaan wandhayna hore uma soo dhigi kartaan sidaa xeerarku sheegeen xeerkuna procedure buu leeyahay annaguna waxba kama bedeli karno idinkuna waxba kama bedeli kartaan saaxiibayaal waxaan idin leenahay ummadda sixir bararku aafeeyey ee la daalaadhacaysa quudatul daruuriga ee shidaalka cirkaa ku marayo ee isla hadlaya ee ka fikiraya caruurtaada maxaad bari siisaa buuqa ka daaya war buuqa ka daaya waxa laga yaabaa maanta 70% dadkeenu inaanay 3 waqti wada helin ama 2 waqti oo kamidaba helin dadka noocaas uma baahna buuq iyo inaan isku dul qabsano siyaasad keena ummadda shidaalka ka jabiya sixir bararka ka jabiya halka laakiin ka baarbaaraysaa kuma jirto halka ka baarbaaraysaan kuma jirto waxaan ku soo gabagabeynaya oo aan leeyahay ku soo noqdo shuruucda dalka ku soo noqdo xeerarka dalka fahamka khaldan iyo jahwareerka iska daaya waxba idii soo kordhin mayso sumcadda qaranka leeyahay iyo sharaftu leeyahay ee laynaga dayanayay geeska Afrika inaga dayanayeen ha ku ciyaarina والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.